waxaa halkan laga hadlayaa waxa weeye duufaantii ka dhacday dalkan gaar ahaan gobolka Awdal ugu darneed laba degmo degmada Lughaya oo dhibta ugu culus ku dhacday iyo talabaadoo degmada Bak la wadaagaan degmooyin kale sida degmada Boon iyo Xariirad dhibaatadeedii baan ka hadlaynaa waxaan u baaqaynaa ummadda ka soo jeeda golaha dadka halkan jooga waxa weeye golaha dhaqanka ee beelaha Makaahi dhammaan iyagoon cidi ka maqnay dareen baa isu keenay dareenkaasoo ah dhibaato way dhacdaa halkay u daranna in lagu horeeyo waa waajib halkii labaad ee soo raacisay inaan weli la isdul taagin dareenka aan ka qabno xagga maamulka dawladda iyada hogaamisa hay'ad iyo wax kasta wixii dalka yimaada waana waajib inay hogaamisaa waa in cadaalad ku hogaamisaa waxaanu haynaa inaan weli muddo bil ay la marayaa dhimashada labaad meesha ay ka dhacday degmada Baki gaar ahaan bariga Baki inaan cid isdul taagin lana tagin beer iyo bar iyo dad inta intaba midnaba waxaan markaa codsanaynaa in la simo dadka taasi waxa ku jeedaa dawladda maanta dalka ka talis cidda labaadeen u baaqayno waa dadka ku abtirsada inta aan tilmaanay waxa dadkiinu idinka baahan yahay inaad u soo gurmataan wax u soo dirtaan waxaan u mahadnaqaynaa gaar ahaan qolada degan London groupka leeyahay MG group waxay soo direen tamartooda wixii ay helayeen iyadoo lagaga hadhi doonin waan idinka mahadnaqaynaa sidaad u gurmateen iyo waxa soo dirteen xaaladda jirtana waxba kama qaban karto biyo irbad la geliye kama aha idinkuna sidaa ha ku joogsanina kuwa kale degan adduunka gobol walba waad joogtaan inaad ku dayataan baan idinka rajaynaynaa oo soo caawisaan dadkiina idinka warrami mayno tilmaanta aan bixinay maqsin baa lagu wada jiraa TV walba waa daawataan wax walba waad ogtihiin kolley intaan ognahay in ku dhow hadaynaad ogeyn in ku dhow waad ogtihiin u soo gurmada dadkiina taa intaa yaa ku koob dawladda mar labaad baa hadalka celin waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha qaranka inuu dalkani hal madaxweyne lahaado madaxweynuhu yahay Muuse Biixi Cabdi waxaan codsanaynaa inaan la faragelinin hay'adaha hadday hay'ad qaran tahay hadday hay'ad samafal tahay waa inay hadday cid faragelisaa madaxweynuhu kaliya xogogaal u noqdaa iyo cidii loo igmaday waa in faragelinta laga daayaa iyo talaabooyinka aan garan laanahay guracan kulay waa laga dambeeyaa meeshan waa lagu dhanyahay hadalkayga intaasaan ku soo koobayaa assalaamu calaykum raxmaan raxiim halka saaqa waxaanu ku shaacinaynaa amaanu kaga hadlaynaa duufaantii ka dhacday gobolka Awdal taasi oo masiibo alla keenay ahayd waxaan leenahay khaasatan dadkii ku dhintay xeebaha gobolka Awdal Allah ha u naxariiso degmada Lughaya dadkii ku dhintay Allah ha u naxariiso waan leenahay dadkii ka hadhayna samir iyo iimaan Allah ka siiyo inta markaan ka gudbo waxaan aad u dhaliilsanahay xukuumadda aad baan u dhaliilsanahay dalka meel qurahu wax kama dhicin gobolka madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynuhu laba diyaaradood bay iska daba qaateen hal meel bay wada tageen halkii meeleedna way ka soo wada noqdeen sidaa darteed waxaan leenahay ilaahay xisbiyadii inayna wali dhawaan ba halka nooga cadaatay halka waxa nooga cadaatay inayna dhamaanin ololihii xisbigu inuu dhamaan baa nooga cadaatay halka waxaan leenahay dalka idinka xukumo marka hore hal la sima dadka taa waxaan markaan ka gudbo waxaan fariin aad u dheer oo cod ugu diraynaa dadkii ka dhashay dadka halka ka hadlaya meel kastoo ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibadiisaba inaanay jirin dadkiina wax u maqan oo idinka ahayn u soo gurmada gurmad weyn baan idinka filaynaa anigoo sii xoojinaya
qolada MG Groupka ee London joogto waanu mahadnaqaynaa wixii ay qabteenna waanu soo gaaray laakiin waxaan leenahay inta waxba qaban mayso waxaan leenahay waar ku dayda kuwa Yurub jooga iyo kuwa Ameerika jooga ku dayda oo sida kuwa ay u soo dadaaleen u soo dadaala dadka magaalada caasimadda aan joogay magacalana waxaan leenahay dadka tagaya ee wax soo qabanaya dumar iyo rag bale boorma bay ka baxaan idinkuna sida yeela aqaladoona ku jirin ka soo baxo dadkiina wax u qabta ayaan leenahay waxba faduul kala gali mayno ma doonayno inaanu cid faduulino hal loo gurmadaan dadka leenahay hana loo sinaado waxaana loo sheegayay dad dib loo sameeyo oo 500 oo qoysa oo loo diray Nairobi yaa naloo sheegayay waxaan leenahay haday hal qabiil noqdo halku dagi doona isaga yaqaan hal 500 oo qof ee dibadajisa loo sameeyay waa inay dadka ka sinaadaan in wax la keeno ma diidanin laakiin hal qabiil haday noqdaan yeeli mayno waxa jirta lacag kale oo laga soo diray Muqdisho oo xildhibaanada qaranka ee Muqdisho soo direen $22,000 waxay gashay gacanta Saylici ilaa haddana ma ogin cid wax loogu qabtay marka waxaanu leenahay dadka loo garsooro waxaan loo garsooro taa lafteedana waxaan doonaynaa warbixin cad in laga helay dadkii loo soo diray baan ka mid nahay oo dadkani ka mid yahay ilaahay baa gurmadle awalan ilaahay baa gurmadle ilaahay baan u cabanaynaa wasada wadayaashu ay soo sheegeen dhulka masiiba ka dhacday masiibadana ilaahay baa wata marka hore horta ilaahay loo toobad keeno baryaduna inay xagga Allah u badnaato ayaa fiican laakiin ummaddu inay iscaawisaa wax ceeb kuma jirto saddexda meelood ee odayga ugu horreeyay tilmaamay meel dhimasho dad iyo khasaare way ka jiraan meel dhimasho xoolaad iyo dhimasho dad baa ka jira meelna khasaare tii ugu xumayd baa ka jirta saddexda meelood meel ka mid aan joogay anigu waa meesha xariirad la yiraahdo meesha dhimasho dadka ma jirto dhimasho khasaare dhuleedna kama jiro laakiin dhimasho xoolaad baa ka jirta waa xoolihii buuraha ku noolaay oo dhan dadku way ka fara baxeen laakiin dhimasho waa meesha ugu dhimashada sahlan meeshaas labada meelood ugu xun waxa weeyaan meesha ilaa log haya oo khasaare dhimasho dad iyo khasaare dhuleedba ka dhacay meesha kale ugu xun waa meesha bariga ee Bakki degmada Bakki weeyaan ilaa Ruqi ilaa Baysar meesha la yiraahdo khasaarihii ugu xumaa meeshaas ka dhacay haddii khasaare jiro khasaarihii ugu xumaa meesha ka dhacay waa meesha dhulkana waxa fiican sida ugu khasaaraha xun yahay in loogu kala gurmado ayaa wanaagsan wixii dhintay waa dhinteen toodii baa gashay Allah u naxariisto siba dadka lug haya ku dhintay Ilaahay u naxariisto waa dad toodii gashay war dadka nool ee hantidii iyo beerihii iyo waxay ku noqoleen ka fara baxeen ka nool hal badbaadiyo kii dhintay Allah u naxariisto waa la aasay anigu waxaan ku talinayaa Ilaahay baa wax badbaadiya ka nool haday dawlad tahay haday MB Group tahay haday ummadda muslimiinta ummadda Soomaaliyeed ba tahay anigu waxaan leeyahay ka nool maanta ha loo taliyo waxa loo qabto wixii loo qaban karayaa loo qabto hadalka waa siday odayada hore soo yiraahdeen dhulka iyo wixii ka dhacayba way soo sheegeen dhulka ay soo magacaabeen ay soo sheegeen wixii ka dhacay ee Ilaahay keenay gurmadkii ummaddu ay u gurmanaysay baa ka maqan dadku wuxuu yiraahdaa ceello uma qodna cidna uma maqna ceello uma qodna cid baa u maqan ciddii u maqan dadka dhulka la soo sheegay degan ee Ilaahay sidaa u gartay u rogay ciddii u maqnayday sidaad ugu soo gurmad lahayd eed u gargaari lahayd Ilaahay baa horta gurmad leh sidaad u gargaari lahayd eed ugu soo gurmad lahayd iyo meesha taala inta baan idin ka codsanaynaa gurmadkaasi waa dadka hal dhulka la magacaabay dadkii u dhashay ee u maqnaa inay dadka u soo gurmadaan hadduu dalka joogiyo hadduu dibadda joogaba inay dadka u soo gurmadaan oo taakuleeyaan oo Ilaahay baa gargaar leh siday u gargaarayeen ay falankeeda qabtaan iyaan u codsanaynaa oo ka codsanaynaa hadduu dalka joogo iyo hadduu dibadda joogaba waxaan halkan baaqi uga diraynaa beelaha degan Ruqi ilaa Xariirad Buurmadow waxa weeye horta masaa'ib baa gobolka Awdal ku dhacday wax Ilaahay laga alla bariyaa ku dhacay
waxa weeye ilaahay un baa inooga gargaari kara dadna wuu ku dhintay badan hantina way ku baabaaday waxaan se leenahay maanta oon baaqa iyagaasi ku saabsan yahay waar siday wax u dhaceen dadka looma siin in uunbaa meeshaa la siiyey annagu sidaan haddaannu odayaashii gobolka awdal nahay sidaan warka ku hayno in uunbaa la siiyey oo diyaarada lagu tegey gawaadhina lagu tegey waxaan leenahay dadka ilaa halkaa ruqi ilaa xariirad ilaa lughaya dadka deggan maanta hantidiina way dhaaftay dadna wuu dhintay waxa weeye waxaan leenahay dadka intaa maaragtaa ragga halkaa joogeed arkaysaan cidday ka socdaan nin walba wuu garanayaa ka dalka jooga iyo ka dibadda jooga meel kastoo la joogo war dadkaa waxaan leenahay ha la soo caawiyo caawimay u baahan yihiin xoog leh wax yari waxba ma qabanayaan nin walba warka wuu hayaa adduunkuu la socdaa waxaan leenahay war bal horta awdal raggii u dhashay ee raggaa arkayow dadkaasi way dulman yihiin way gaajaysan yihiin hantidii way dhaaftay war waxaan leenahay gurmad xoog leh dadkaa la soo caawiyo annaguna dee waxa weeye gobolkii awdal baan joognaaye dee guntigaan itaalka iyaga dhiisha iskaga dhigannaa horena waan iskaga dhignay muuse biixi waxaan leenahay war muuse biixi ow adigaa madaxweyne ka ah dalka annagu madaxweyne kale uma aqoonsanin adaa lagu doortay ku macaarida iyo ku xaafidaba adigaa u dawlada dalka annagu ku kale oo meeshaa dhexdhexaada meesha ma yaallo marka koowaad anu 3 qodob baan ka hadlayaa qodob waxa weeye wixii dhacay sida odayaashuba u sheegeen qodobka labaadna waxa weeye qaybin xumada aan u tirinayno wixii dhibtu ku dhacday qodobka saddexaadna waxa weeye cidda qaybin xumada noo keentay taabashadeeda weeyaan kolley sida wax u dhaceen lughaya baki xariirad iyo qaybta galbeedka dhibtu saddexdaasay ugu weynayd waa 1 2 iyo 3 gobolka degmada baki la yidhaah berigeeda hadduu beer lahaa iyo hadduu bar lahaa horta waxba kama jiraan dadna waa ku dhinto waad ogtihiin kolley waxay ahaayeen tuuga waxaan u qabnaa halka wanka ahee koobaad waxay ahayd lughaya waa la tegey alxamdulilah rabbilcaalamiin haddii wax loo taray kama xumin laakiin waxaan aad iyo aad u diidannahay ee labaad waxa weeye sida odayga horeba u carabaabay 500 oo qoys oo dibudejin loo samaynayo sheekaan ku haynaa oo libaaxle yaaldee wax duufaanina kuma dhicin yacni wax duufaanina kuma dhicin taa waa diidannahay oo yacni waxa dibudejin loo sameeyaa dad adduunyo iyo dhul wuxuu lahaaba ka baxaydii ama dhimasha timidii waxaan ku hadlaynaa waa magac gaara dadkaan la hadlaynaana waxay u badan yihiin gurmadka ka sugaynaay magaca aan halkaa ku joogno dadkii ahaa meel kastaba ha joogeen gude iyo dibad iyo gobollada dawladaha aan jaarka nahay sida Djibouti iyo Itoobiya iyo wixii la halmaala xamar ha ahaato cid waloo haddana meel naga joogto waan u yeedhaynaa si ay ugu soo gurmadaan dadka duufaanku ku dhacay ee beerihii ka baaba'een ee duunyadii ka dhammaatay ee dadna ka dhintay wax badanna guryihii ka dubeen waxaan leenahay waa magac wax ku hadlayn waxaan leenahay lixiba la geedu xaadhatee gurmadkii hore raashinka iyo waxyaalaha ay dee dhulka ugu yar wada taataabtay laakiin
beerihii gurmad lagama gelin duunyadiina gurmad lagama gelin waxaan leenahay waar sidii beerahana loo caymin lahaa ee loogu gurman lahaa duunyadiina looga gurman lahaa waxaan leenahay codka yagaasi markuu idin soo gaadho ninba meelu joogaba gurmad dhiisha ha isaga soo dhigo ha soo gurmado wixii uu soo gaadhsiin karo dadka ha soo gaadhsiiyo insha allahu tacaala dee gacmahana loo wada dhiibamaya gacanta maanta afka maanta halkan ka hadlaya cidda uu ku saabsan yahayey waxaad soo dirta halkan aad u soo diri saasaa beeraha iyo bar wixii ahaba lagu gaadhsiin kari waxaan leenahay sidaa u soo gurmada haddii laha idhaahdo xaggan kale muxuu ahayn odayaashu faragelinta ay sheegayaanna waxaan leenahay